markaasaa yuusuf ku hor adkaysan kari waayey kuwii isaga la taagnaa oo dhan oo wuxuu ku qayliyey nin walba dibadda iiga bixiya oo ninnaba lama taagnayn isaga markii yuusuf walaalihiis isu sheegay markaasuu intuu codkiisii kor u qaaday ooyay oo masriyiintiina way maqleen dadkii guriga fircoonna way maqleen markaasaa yuusuf wuxuu walaalihiis ku yidhi yuusuf baan ahay ee aabbahay weliba nool yahay walaalihiisna way u jawaabi kari waayeen waayo aad bay ugu argagaxeen hortiisa markaasaa yuusuf wuxuu walaalihiis ku yidhi bal ii soo dhowaada waan idin baryayaaye kolkaasay u soo dhowaadeen markaasuu yidhi anigu waxaan ahay walaalkii yuusuf kii aad ka iibiseen kuwii masar tegayey oo haatan ha caloolxumaanina naftiinnana ha u cadhoonina iibiskii aad halkan iga iibiseen aawadiis waayo ilaah wuxuu hortiinna ii soo diray in nafa la badbaadiyo waayo 2 sannadood baa dhulku abaar ahaa oo weli waxaa hadhay 5 sannadood oo aan beer la fali doonin waxna la goosan doonin oo ilaah wuxuu hortiin ii soo diray inuu dadkiinna qaar dhulka idinku reebo oo uu idin badbaadiyo kuwa fara badan oo baxsada haddaba sidaa daraaddeed idinka ma ahayn kii halkan ii soo diray laakiinse wuxuu ahaa ilaah oo isagu fircoon wuu aabbe iiga dhigay iyo sayidkii dadka gurigiisa oo dhan iyo taliyihii dalka masar oo dhan dhaqsada oo aabbahay u kaca oo waxaad isaga ku tidhaahdaan wiilkaagii yuusuf wuxuu kugu soo yidhi ilaah wuxuu iga dhigay sayidkii masar oo dhan soo dhaadhac oo ii kaalay hana raagin oo waxaad degi doontaa dhulka la yidhaahdo gooshen oo waad ii soo dhowaan doontaa adiga iyo carruurtaada carruurtooda iyo adhigaaga iyo lo'daada iyo waxa aad haysatid oo dhanba oo halkaasaan kugu quudin doonaa waayo weli waxaa hadhay 5 sannadood oo abbaar ah waaba intaasoo aad gaajootaan adiga iyo reerkaaga iyo waxa aad haysatid oo dhammuba oo bal eega indhihiinnu waa arkaan iyo indhaha walaalkay binyamiinba inuu afkayga yahay kan idinla hadlaya idinku waxaad aabbahay u sheegtaan ammaantayda aan masar ku leeyahay oo dhan iyo wixii aad aragteen oo dhan oo dhaqsada oo aabbahay halkan keena markaasuu walaalkiis binyamiin qoortiisa dhab yidhi wuuna ku dul ooyey binyamiinna qoortiisuu ku ooyey markaasuu wada dhunkaday walaalihiis oo dhan wuuna ku dul ooyey dabadeedna walaalihiis baa la hadlay isagii markaasaa warkii laga maqlay gurigii fircoon oo waxaa la yidhi yuusuf walaalihiis baa yimid taasna aad bay uga farxisay fircoon iyo addoommadiisiiba markaasaa fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi walaalaha waxaad ku tidhaahdaa idinku sidan yeela gaadiidkiinna rarta oo taga oo dalkii kancaan u kaca oo waxaad soo kaxaysataan aabbihiin iyo reerihiinna oo dhan oo aniga ii kaalaya oo anna waxaan idin siin doonaa waxyaalaha wanwanaagsan ee dalka masar oo idinku waxaad cuni doontaan barwaaqada dalka haddaba waa lagu amray sidan yeela gaari fardood dalka masar uga kaxaysta dhallaankiinna iyo dumarkiinna oo aabbihiinna keena oo kaalaya oo alaabtiinnana ha ka fakerina waayo waxyaalaha wanwanaagsan ee dalka masar oo dhan idinkaa iska leh markaasaa wiilashii israa'iil saas yeeleen yuusufna wuxuu iyagii siiyey gaari fardood sidii fircoon amarkiisuu ahaa sahayna jidkuu u siiyey dhammaantoodna wuxuu nin kasta siiyey dhar isku joog ah laakiinse binyamiin wuxuu siiyey 300 oo xabbadood oo lacag ah iyo 5 isku joog oo aabbihiisna sidan buu wax ugu diray 10 dameer oo ay ku raran yihiin
waxyaalihii wanaagsanaa ee Masar iyo 10 dameerood oo hadhuudh iyo cunto ku raran yihiin iyo sahaydii aabbihiis jidka ku soo marin lahaa markaasuu walaalihiis diray oo iyana way tageen oo wuxuu iyagii ku yidhi idinku jidka ha isugu caroorina markaasay Masar ka baxeen oo ay yimaadeen dalkii Kalcaan oo waxay u yimaadeen aabbahood Yacquub markaasay u sheegeen oo ku yidhaahdeen Yuusuf weli waa nool yahay oo wuxuu u taliyaa dalka Masar oo dhan markaasuu taag darnaaday waayo wuu rumaysan waayey iyagii markaasay u sheegeen hadalkii Yuusuf kula hadlay oo dhan oo markuu arkay gaari fardoodkii Yuusuf u soo diray in isaga lagu qaado ayaa aabbahood Yacquub ruuxiisii cusboonaaday markaasaa Israa'iil wuxuu yidhi igu filan mar haddii wiilkaygii Yuusuf weli nool yahay haddaba waan tegi doonaa oo waan arki doonaa isaga intaanan dhiman